madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo shir jiraad ku qabtay magaalada cadaado ayaa uga hadlay dagaalada ku soo laalaabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wuxuuna sheegay in maanta ay khadka teleefoonka shir ku wada yeesheen ra'iisul wasaaraha dalka madaxweynaha maamulka puntland iyo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan amuuraha soomaaliya shirkaasna ay iskula garteen in la hirgeliyo xabad joojin waxaa sidoo kale sheegay madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed in la qabto shir degdeg ah kaas oo xal loogu raadinayo colaadaha ku soo laalaabtay magaalada gaalkacyo maanta waxaa shir xagga telefoon hawada ah aan ku yeelanay aniga iyo madaxweynaha puntland iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka oo matalaya dowladda dhexe Soomaaliya iyo ergeyga qaramada midoobay wakiilka oo ah oo matalaya beesha caalamka shirkaas ujeedadiisu waxay ahayd sidii colaadda magaalada gaalkacyo loo joojin lahaa loona hirgelin lahaa xabad joojintii bisha koodeeda ugu saxiixay magaalada Abu Dhabi iyo ciddii xabad joojintii jabisay iyo inaan mar dambe xabad joojintaasi aysan jabin laakiin dhinaca kale waxaan rajaynaynaa in wada hadal degdeg ah oo qoto dheer oo arinta gaalkacyo ay soo laalaabatay lagu xalliyo laguna daaweeyo xididada iyo raadadka ay leedahana lagu ogaado loogana wada hadlo laguna heshiiyo inay dhacdo xaqiiqatan anaga haddaan galmudugnahay mar kasta diyaar ayaan u ahayn wada hadalladaas ayaga inay dhacaan sanadkii hore bishii December markii heshiiska lagu gaaray magaalada gaalkacyo ilaa iyo xilligan galmudug waxay dalbanaysay in heshiiskaas la hirgeliyo ay dalbanaysay laakiin ayaan daro mar walba heshiiskaas iyo hirgelintiisa dhinaca kale ee Puntland ayuu ka suuragelin la'aa waxaan rajaynaynaa marka saaxiibadeen Puntland inay garwaaqsadaan nabadda iyo wanaagga ay leedahay inay garwaaqsadaan darisnimada iyo wanaagga ay leedahay inay garwaaqsadaan in ay runtii u hoggaansamaan xabad joojinta inay u hoggaansamaan nabadda iyo heshiisyada intaba inay u hoggaansamaan maxamed maxamuud awaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado